wabarakatuh. Soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran channelkeena Expert Option Somali. Insha Allah caawa halkan waxaan doonayaa su'aal aad iyo aad igu soo noqotay. Dhalinyaro badan isoo weydiiyeen. Dhalinyarta waxaa laga yaabaa inta badan qofka markuu rabo inuu wax ogaado. Inta badan dadka qaar waxaa jira aan soo eegin fiidiyowyada hore aan soo dhigay. Haddana anoo su'aalihiina faraha badan tixgelinaya oo raba inaan si fiican idiin fahansiiyo idinkana jahil saaro. Waxaa jirta su'aal igu soo noqonaysa oo ahayd waa maxay Expert Option? Horta Expert Option platform-kan la dhaho ustaad na fahansii. Dhalinyaro badan waxaa jirta su'aasha noocaas i weydiisa. What is the Expert Option? Haddii aan caawa idin fahansiiyo anoo rabin inuu fiidiyoga igu dheeraado si aan fiidiyoga ugu daalin. Horta Expert Option waa platform midda horta real ah oon scam ahayn. Midda haddaynu isku waafaqnay okay see buu u shaqeeyaa? Su'aasha labaad ee meesha taalla wey. Horta platform-kan sida uu u shaqeeyo waxa weeye sida ay u shaqeeyaan platform-yada IK Option, Market Option iyo Forex. Waana platform saxan real ah. Su'aasha saddexaad meesha imaanaysa waxay tahay maadaama uu platform-kan yahay platform saxan, maadaama tiri platform-kan waa platform shaqeynaya, ma leeyahay rules iyo nidaam sida ay rules iyo nidaam u leeyihiin waxaa loo yaqaan IK Option iyo Market Option iyo Forex. Really wuu leeyahay rules iyo nidaam. Intaanan mawduuca guda gelin fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe, like and share and comment. Wixii su'aalaad qabtidna fadlan commentiga nagu weydii. Linkiga Telegram-keenana waxaan dhigi doonaa commentiga insha Allah. Okay, anigoo hadalkayga kala qaadaya si fiicanna idiin fahansiinaya si oo casharkan aan caawa duubayo uu idinku noqdo cashar dhigaal ah oo haddii aad u baahatid waa maxay Expert Option aad dib ugu laabanayso casharkan aad si fiican u dhegeysanaysid ayaan insha Allah idin duubaya. Waxaan rajeynayaa inaad dhegeysan doontaan. Insha Allah markaynu intaan kaga nimaadno introduction-keena ama mawduuceena ama su'aalaha aynu ka hadlayno waxa ay ku saabsan yihiin. Casharka haddaynu u guda galno waa maxay Expert Option? Saan idiin sheegay Expert Option waa platform saan arkaysaan buuna u shaqeeyaa sida ay u shaqeeyaan IK Option iyo Market Option iyo Forex. Platform-ka lacagta lagu shubtaa ugu yar horta waa $10 iyo wixii ka badan inta aad doontid baa ku shubanaysaa. Okay, markii inta laga yimaado platform-kan wuxuu leeyahay rules iyo nidaam saan casharadii kan ka horreeyay uga hadlay oo fiidiyoo hore iyo yaalla uga hadlay. Haddana anaa jecel inaan caawa toos uga hadlo. Anigu labada indicator aan isticmaalo oo inta badan aan aadka u isticmaalo waa labada indicator hadda idiin muuqda, vertical line iyo ray line waxa loo yaqaano. Oo waxaa la yiraahdo ray line waa kan. Vertical line haddaad maqashid waa line taagan oo waa line sidan oo kala weeye. Waa line san u taagan. Kan taagan haddii aan idiin qiimeeyo inta badan wuxuu ku fiican yahay in suuqa markii aad saan u dhigtid raygani wuxuu kuu qabanayaa tan. Kadib waxaad ogaanaysaa inta uu ka raacay dhinacan inta uu ka raacay inta uu ka jiro baad ogaanaysaa dherer ahaan. Haddii uu dherer ahaan dhinacan wax dheer ka jiro suuqaasi waa buy, laakiin haddii uu dherer ahaan suuqu sidan ii sheegay dherer ahaan suuqu meelahaas uu kan imaanayo meelahaas kala uu yimaado waxaad arkaysaa in argadu yaraanayso. Sidaa darteed waxaad ogaanaysaa suuqan inuu yahay down trend. Laakiin haddii aad aragtid in raygan uu intaa ka qabtay waxaad ogaanaysaa suuqani inuu yahay up trend. Haddii aad aragtid in suuqa halka hoose ka qabtay waxaad ogaanaysaa raygan inuu yahay suuqani down trend. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen labadaas waxa aan u isticmaalo iyo qaabka aan u isticmaalo. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaad fahanteen. Midda labaad suuqani wuxuu kaga fiican yahay suuqyadii kale anoo ku guda jira su'aasheenii ahayd waa maxay Expert Option? Suuqan wuxuu kaga duwan yahay suuqyadii kale. Horta xagga loss-ka aad buu uga sahlan yahay, aad buuna uga fudud yahay. Ta labaad waxa weeyaan suuqan waxaad u adeegsan kartaa waan idiin sheegay fiidiyoo horena waa uga hadlay. Waxaa yidhi suuqani waa scalping. Scalping haddii aydan aqoon Soomaali ahaan idinku sheego waxa weeye
suuqyada loo isticmaalo minutyada yaryar oo wixii 1 minute ilaa 5 minute u dhexeeya baa la dhahaa scalping. Forecastku waa leeyahay, IQ optionku waa leeyahay, market optionku waa leeyahay, laakiin expert option aad iyo aad iyo aad iyo aad baan odhan karaa wuxuu ugu fiican yahay scalpingka waxaa loo yaqaan. oo iminka haddaad aragtaan scalping waxaa dhahaa timekan ama minutekan halkan idinka muuqda waa 1 minute 2 minute 3 minute 4 minute ilaa 5 minute. oo scalping 5 minute ma dhaafo. Expert option waxaa loo yaqaano 5 minute ma dhaafo. haddii lagu dhaho expert option 5 minute uu ka badan yahay been baa lagu sheegay. 5 minute ma dhaafo expert option. insha allah waxaan rajeynayaa midaan inaa fahanteen in suuqani uu scalpingka aad iyo aad iyo aad ugu fiican yahay. su-aasha labaad oo ahayd expert option intee in leeg baa laysku haleyn karaa, platform nooceena buu yahay. anoo su-aasha maaragtay si fiican jecel inaa idiin fahansiiyo, jecelna videoga inaad haddaa hal mar daawato aad si fiican u fahantid, fadlan haddii aadan fahmin waad ku ceshan kartaa videoga. insha allah waxaan arkay dhalinyaro badan oo igula maaragtay ustaad inta badan codkaaga wuu gaaban yahay, fadlan anigu codka intii igu filnid waan duubay. waxaan rajeynaya insha allah inaad maaragtay ku ceshan doonto hadalkan aad si fiican u dhuuxi doonto. expert option oo tusaan ii sheegay waa platform 100% la isku haleyn karo. maaragtay ii sheegay haddii aad maaragtay lacag aad dhigatid aad si toosa aad lacagtaada ugala baxayso, lacagtaaduna aysan NN iyo wax kaa gelin, oo ay yahay platform real ah. okay haddaba sidee lacagta expert option intee method baa lagu deposit garaya. haddaan method aydan garanayn waxaa weeye waa intee wadaa lacagta lagu deposit garaya. okay lacagta expert option waxaa lagu deposit garayaa Dar es Salaam Bank, Mastercard, Visa card, any card aa haystid. haddii aadan intaa haysan waxaa ku dhigan kartaa Perfect Money. qaababka oo lacag lagu dhigtaan ugu jiraan oo screen oo kale ugu jira qaab badan baa jira, Western Union baa jira, qaab badan baa jira oo loo dhigto. laakiin haddii dadka Soomaaliya jooga qaabka ugu fudud waa Perfect Money, Visa card, Mastercard, Dar es Salaam Bank, IBS Bank, kaarka noocaas weeyaan. marka insha allah waxaan rajeynayaa kaararka noocaas inaad haystid. haddii aadan kaararka haysanna aad ma aragtayay waxaa loo yaqaano aad Perfect Money isticmaali doontid. okay screen waa ognahay Soomaaliya kama shaqeeyo, laakiin Perfect Money baa kuu buuxinaya boosaska kaararka kale. insha allah waxaan rajeynayaa haddaa Perfect Money qaabka lacagta loo dhigto u baahan tahayna video waxaa jira aan kaga soo hadlay oo maaragtay yaala YouTube-ka dhexdiisa. haddaad u baahan tahay inaan video update aan kaga soo hadlo qaabka Perfect Money lacagta loo dhigtana insha allah waxaan rajeynayaa inaad maaragtay qaybta commentiga igu reebi doontid. su-aasha aad u baahan tahayna aad commentiga igu reebi doontid. intaa marka laga yimaado what is expert option. insha allah waxaan rajeynayaa su-aasha inaad si fiican uga soo dhiragteen. haddii aad maaragtay aad wax ka yara fahmi weydeen inaad ku ceshitid, haddii aad su-aal kale ka qabtidna inaad commentiga igu diintid. intee laysku hadlayn karaa expert option waan kuu sheegay, waana ka soo hadlay in 100% platform real ay yahay. markii intaa laga yimaado wadooyinka lacagta lagu dhigtona waan kuu sheegay expert option intooda lagu sawirgaraya ama lacagtooda lagula baxa. insha allah waxaan rajeynayaa intaa inaan isla fahnay. 3 su-aalood ugu muhiimsanaa oo aan maaragtay ninka waliba caawa iga dareemay in hergab yahayo, haddana 3 su-aalood ugu muhiimsanaa oo maaragtay aan isiri maanta dhalinyarta Soomaaliyeed way u baahan yihiin wayna kugu weydiin badan yihiin. insha allah waxaan rajeynayaa inaan idinka soo jawaabay. fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe, like and share and comment. wixii su-aalo oo dambaad qabtidna fadlan commentiga igu weydii.